horta qabiilkan gobolka Shabeellaha Dhexe waa qabiil aan ku ilbixin inay wax soo saaraan macnaha wariyaasha iyo wariyaal wax soo saar kama dhalanba sababtoo ah haddii wariyaal wax soo saar ka dhalan maanta gobolku isbedeli lahay sababtoo warbixintiisa dheeraa lahayd mar walba la arki lahay waxa laga yaabaa maanta haddaad YouTube meelaha aad gasho in aad u yartaa gobolka Shabeellaha Dhexe meelaha aad qaar ka aragto marka markaad YouTube gasho deegaan amba gobol amba Soomaaliya kamid ah aad geliso YouTube aad u soo baxa wax walba arka taariikh walba ka baray laakiin maanta deegaanka aad u yar gaaraan degmada Mugud waa aad u sii yartaa hadda tuuladan Hilowlagaab u jeedin saanay u fidsantahay u jeedin baladiin waaye hadda macna xooliya bariya jiray xooliya la aaday wala naqraashay wax koray jiraan wax kuwal xamariga qaraabo aadeen marka saasay macna waxay u taalaa ay looga kala tagamaanay xilliga jilaalka ah oo jilaalku jiro meelad ka fadhiisato ma barxada u jeedin ma arkayso beledkan sababtoo la isku imaana marka waxa kala jirtay tuuladan Hilowlagaab u jeedin waa tuulooyinka waxay kamid tahay degmada Mugud hoos taga oo degmada runtii aad hoos tago macnaha laga xukumo waana degmada ugu xageysa gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaanba haddii inta aad u dhaafto xuduudka waxaad galaysaa galgudud aad galaysaa hadda meel dhow ku galaysaa marka tuulooyinka hoos taga degmada Mugud waxa kamid ah wax ugu waaweyn haddaan dhaho tuulada Ceelbacad haddii laga yimaado oo ah tuulo weyn oo ballaaran oo iyadoo maaragtay xoog loo dhul weyn ku taalo fidsan in iska tay wada xumo ee iska jirto wada haysan dawladda looga Ceelbacad lambar 2 galaysa lambar 2 looga galaysa kadib cadaan lixii dumay meelaas la aada marka tuuladan dumay Hilowlagaabkan hadda aan ka hadlayno joogno maanta waxay leedahay wadada ugu muhiimsan gobolka Shabeellaha Dhexe marta oo degmada soo marta oo tan xara dheer ilaa Muqdisho isku xirta marka saasi macna uga nasiib badan tahay tuulada Ceelbacad oo meel fog ku taalo oo dhabaya yar u leexdaan ee rafasta weyn ay tagin marka hadda waxa arkay mana xamar tagay mara ilmo yar oo aan arkay YouTube-ka iyo wax ku fiirfiirinay ما هبل قلها دي لا فقلو صولة ما هبل قلها دقما هبل قبل كحب لكن قبل شباب لا مركات كهذا شوت سوق جلسة أد بيوغيرته أد بوغيره وحصل بحر موجود دقما موجود أد بيوغيرته يوتيوب كديك صباح ذاته صبتو أوري هش إن لها وأعطتك أو حصل صارتك وحبرة أبو كويرته قبيل كان قبل شباب لا حد كان أد ويربو صاصة وحين كنيسة إن أدولك موجود كلو dadkan waa dad xoolaaliya waa dad iska guurta asaasa macnaha loo dhaafay marka aad uma beedka Mugud media boqolkiiba boqol waan taageersanahay waana ugan mahad celinayna runtii inuu deegaankayna maanta ka hadlaa oo degmadayna Mugud oo warbixin ka diyaariya mar walba aan ku aragnaa oo meelaha laga si dhalinyaradayni dibadaha jiray oo arkaan soo dhiiradaan ay u yimaadeen ee dhistaan runtii waa deegaan ganacsi xataa aad u muhiim u yahay ganacsi caawa dadka furay ganacsi dhalinyarada Ilaahay wax siiyo dibadaha jirto Yurubta meelaha joogta hadii yimaadeen hadda tuulada looga u jeedin saan waa xaajo lo iyo waxba iska fufadha cid kale ma leh waxa way jilaalka xoogay boobuqta maana wax kale ma leh ganacsi baa loo baahan yahay dib u dhis ballaaran oo fiican marka runtii waxaan dhahelaa dhalinyarada soo laabtaan oo runtii dhulkaan ku soo laabtaan waraaqayso midda kale eriga iyo xoolaha markii la